wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shaacisay in wasaaradda gaadiidku bilaabayso adeeg bixinta liisamada iyo buugaagta gaadiidka dadweynaha gelinka dambe maalin kasta. halka markii hore ay ka ahayd shaqada adeeg bixinta dadweynaha ee wasaaradda gaadiidku gelinka hore oo kaliya. agaasimaha waaxda liisamada iyo buugaagta ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta ayaan Cabdicasiis ayaa ka warantay adeegyada lagu soo kordhiyay shaqada wasaaradda gaadiidka iyo waqtiyada la bixinayo adeegyadaasi. haddaan hay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda in adeegii gaadiidka dadweynaha ee kala duwan iyo gaadiidka dawladaba gelinka dambe in lagu soo kordhiyay waaxda liisamada iyo buugaagta taasoo aan qabanayno dhammaan adeegii gaadiidka sida kala wareejinta liisamada duplicate-ka dhammaan adeega gaadiidka sidoo kale waxaan maanta cadeynaynaa in dhammaan dadkii haystay liisamada Soomaaliland in loo sameeyo liisan bedel iyadoo laga qaadayo cabirka indhaha qofka iyo cashuurtii liisankii lagu lahaa. agaasimayaasha guud ee wasaaradaha gaadiidka iyo maaliyadda Ahmed Abubakar Maxamed iyo Maxamed Cabdi Gurxan ayaa dhankooda ka waramay muhiimadda ay leedahay in shaqada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland kor loo qaado maadaama ay bixiso wasaaraddu adeeg dadweyne oo waqti kasta loo baahan karo. wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay si rasmi ah maanta muwaadiniinta kala duwan ee adeegyada gaadiidka ku xidhan waxaanu goobtan maanta iskugu nimid inaanu iclaamino inay labada xafiis ee labada wasaaradood ay labada gelinba diyaar ahaan doonaan iyagoo u adeegi doona muwaadiniinta iyo cashuur bixiyaasha kala duwan ee u baahan adeegyada labada wasaaradood ka dhaxeeya. dhinaca kalena waxaanu ugu bushaareynaa dhammaan muwaadiniinta kala duwan ee sita liisankii hore ee buugga inay wasaaradda gaadiidku ay diyaar u tahay oo ay ka bedelayso liisan kasta oo buug oo sharciya oo sax ah oo ansaxa. waxay labada wasaaradood isla fahmeen oo isla qaateen in muwaadiniinta iyo qof kasta oo sita liisanka hore in loo bedelayo. ujeedada maanta warkaan u qabanay war saxaafadeedkan waxa weeyaan inaan iclaamino isla markaana bulshada reer Soomaaliland ugu bushaarino in wasaaradda gaadiidku ee adeegii loo fidin jiray bulshada reer Soomaaliland gelinka hore iyo gelinka dambeba loogu diyaariyay xafiiska iyo xarunta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhan. qof kasta adeeg u baahan markaa ama liisan inuu qaato ama buug inuu gaariga buuggiisii uu qaato ama blade laga bedelo oo bladeku uu ka lumay ama imtixaan inuu galo u baahan dhammaan adeegyadaas oo dhan gelin hore gelin dambe xafiisyada wasaaradda dhan bay diyaar ku yihiin. waxaa jira dad gelinka hore shaqeeya oo gelinka dambe u baahan iyo qaar gelinka dambe shaqeeya gelinka hore u baahan adeeg helaan. marka labadiiba waa loo diyaariyay iyadoo la raacayo markaa xeerka nabadgelyada wadooyinka xeer 56/2013 isla markaan la tixgelinay markaa dawladnimada iyo maamul wanaagga waxa la go'aamiyay markaa dhammaan dadkii liisamada hore u haystay dib baa markaa lagu cusboonaysiinaya. waxaa la siinayaa liisan lafa oo cusub kiisii hore qofka cancel ma laga dhufanaya shaambad cas hadduu buug yahay qofka liisan lafa sitay uu ka dhacayna waa laga daloolinaya isagana. marka waanu ku kaxaysan kareen gaari mooya laakiin taariikhaan buu qofku haysanaya. waxaa inta dheer qofka markaa indhihiisa la cabirayaa dhiiggiisa la cabirayaa markaa guriga uu kan ma noqonayse qofka inuu xarumaha yimaado